asalaamu calaykum dhegaystayaal waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu ugu magac darnay muuqaalka soomaalida maanta waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey aamin media limited waxaana idinla socodsiinaysa kiin xaaji makaraan oo joogta magaalada muqdisho وإنسان أقورها رحمنا إسلاميمو aamin media ونبدلها شقا لكينا يقانيمو aamin media waa qaybtii lixaad ee barnaamijyada muuqaalka soomaalida maanta waxaana marti noogu ah Cumar Sheekh Cali oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho maxaan kugu yaaqoodnaa nin hooyadii dil gurigiyaal adoogiyaa dhintay oo la dilay dhulaa la dhaxlay hooyo dad jiray dibadda ayay xoolahoodii qabaan wiilkana xoolihiisa waa qaad jaadu ku soo cunay waa yimid xoolihii kale ay dhisay xoolaha hastada iska leh tiray oo kuma sii karo kaarana kana waa dilay hooyadiis waxyaaba igu yab badnaado soo maray 20 sano ka waran doorka waqtiga dhinaca siyaasadda oo Soomaalida أنا كم قناعسني الدور كهذا يكون ليه سببته هو أي صوم مرة وحي هاد إن أيجا بسياسة دلول الله قدم بيه تاسع بعنو ليه لاي Soomaaliya إن ملح الله قدم أيجا كليه وفلواتن يلا بس سنة ما نقول عنان حكم وحلا يده يقدر شجع أنت بدباد ضد وما أنت سوق قرتنا أنت بدن هوانك سوق بدباديه أيجا عقدات ما قبع رجع عقدات السوق قبع هبل كدولي أنت صدده هن لك الدلي ولا أنا لك دعي عقدات سيكون جرا أيجا عقدات كويس سوق جيدا ين مهني ما كان قاجين قسويحو ولا كلو أولولي ما حول ورسو استعمال تكربسي aamin media qadarkaas yaree hordhaca kadib ayaa inagu dhaafaya kiin xaaji makaraan oo barnaamijka idinla socodsiisa waa Shariif Cali Shariif oo idin leh dhageysi wacan kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka muuqaalka Soomaalida maanta waxaana marti noogu ah Cumar Sheekh Cali oo ku sugan Muqdisho ugu horeyn bal waxaad inoo sharaxdaa 20 sano dalka ku sugnayd mas'uud ka maqnay hal maalin oo aan ka maqnay dalka ma jiro dhammaan 20 sano dalka ayaan ku sugnay wax xun iyo wax fiican inta wadanka dhacayna xaadiran u ahay maalin kaliya kama maqnayn wax allaala wixii wanaag ama la arkay haba yaraadee iyo wixii ugu badnaayo ah dhibaato inta baa soo jooga waxaa kaloo jirta anigu waxaan ahay dadka markii burburku dhacay aqoonta u lahayno waxa la yiraahdaa taararka taar ayaan joogay taarkaasoo bulshadu ku wada xiriir jirtay ama wadamada dariska ahaato ama dalka gudihiisa ahaato Soomaaliya degmo ama gobol kamida oonan xogaal u ahayn ma jirto 20 iyo dhowrka sano ee burburka wax kasta oo la soo maray iyo siday ahaayeen iyo in aan aniga laftaydu qayb ka qaatay sidii bulshadu markay kala firirtay oo colaadaha iyo waxyaabaha maaragtay qabaa'ilku ay isu dileen ay kala yaaceen dadkii xiriiri jiray oo isu raadi jiray ayaan kamid ahay wax badan oo kamidana waa ku soo guuleystay waxa si kooban iga warbixisaa dhibaatooyinkii la soo maray ama aad aragtay adigu iyo naftaada sida aad ugu qancin jirtay in dhibaatadaas ay tahay mid laga gudbi doono dhibaatooyin badan ayaan soo arkay oo aan goobjoog u soo ahay waxaan goobjoog u soo ahay dad madfac ku dhacay oo qoys ah oo qof ka hirtay ama cunug saqiir oo dugsi jira ka hiray waxaan goobjoog u ahay umar la kufsaday dad waxba aan galabsan oo la dilay waxaan goobjoog u ahay xoolo dad leeyihiin oo la dhacayo hirti waxba wax maaragtay dadku waa dhacayo wax shaki ayaan gelinin hantidaasoo ama maaragtay maqaasino alaabtiil ah ama gaadiidka dad gaar u lahaayeen ah ama mid qaranka Soomaaliyeed lahaayo dadka ka dhaxaysay ah dad dhacayaan soo joogay oo aan waxba iska cid ay ka cabsanayaan oo bini aadam ay isjirin Allah aan ka cabsanin si kasta ahaatee arintu waxyaabaha igu yaabka badnaay waxa kamid ah inaan arkay naag ninkeedii ka tagay ee meel ay ku sheegto weyday ee nin kale iska guursatay ninka iyadoo ilmo u leh ninkana soo wacay ninka hadduu soo wacayna ay maaragtay uu sheegay inuu meel dalka dibadiisa u baxay ayagana uu wada wax la yiraahdo sponsor oo dibadda u qaadayo kadibna meeshaas dhibaato ka dhacday naagtu nimay xaas u tahay wixii kaloo igu yaabka badnaayo soo maray waxay ahayd Boosaaso nin iga soo waca maalin maalmaha kamid ah ninkaas oo dadkiisa loo sheegay in la dilay saas darteed naagtiisa asay qaaday ka bacdina nin guursaday oo markaan soo cidiisa u tagay naagtiisa iyo walaashii markaan u tagay ay labaduba dagaal igu soo qaadeen ayagoo leh ma aakhirad ka soo hadlaysa nin waalanaatay ilaa ay ninka codkiisa inta ma dhageystaan hooyadii weydiiyaan ahalkiisa weydiiyaan ay saas iga qanceen saas ku qanceen marka waxyaabaha yaabka badan oo soo maray kamid ahayd waxaas iyo waxaan la soo koobi karin oo ka tira badan ba waa soo aragnay marka
walaal waxa waaye 20 sano oo aad u dhib badan ay ahayd dad badan ku tagay maal badan ku tagay hadii la ku roon yahay dad badan oo isdhalay iyo dad isdhashaa ku kala dhaqaaqay oo meel isku sheegin marka saas way walaal bal ka waran dhibaatadaas oo ay naftaada arkayso sidee ugu qancin jirtay inay tahay wax laga gudbi karo ilaahan aqoonsanahay aayad ku jirta suuratul baqara oo dhahaysa idin jarrabna waydin jarrabaynaa waxaan la iska noqon maalka waxaa la idinka nusqaamaa maaragtay caruurta waxaa la idinka nusqaamaa thimaarta waxaa la iska nafta lafteeda la cabsi gelinayo oo inaad cabsatiina la idinku imtixaamaa waxaase guulaysaa kuwa ku sabraan marka waan ku sabrayay markastana waxa dadka aan arkayo ku dhacaya aniga ammaanka ma ahayn aymisna ugama jirin waa sugay inay ugu dhacaan laakiin ilaahay amarkiis ilaahay hadda waa noolahay dad badbaaday ayaana ka mid ahay ma jiraan waxyaabo kugu murugo badnaa oo ilaahay hadda aad xasuusanto oo qalbigaada kugu go'ila ama aad ula yaabto markii ay dhacdooyinkaas oo kale ay dhaceen waxyaabaha ugu yaabka wax badan oo horta wax bayar waxa ugu yaabka badnaay waxaase kamida waxyaabaha yaabka lahaay nin ayaa guri haystay bakara ku yaal waxa uu yimid ninka guriga lahaay gurigaana leeyahay ma dhihin ninkaas guriyaha dukaama uga furaay oo uu jaarnay ijaar ka qaadan jiray nin wuxuu yiri guriyaha dhamaantood aniga ijaar ninka iska lahayna waa meesha waa ka ijaartay haduu ka ijaartay dokumentiga haystay waa iibsaday gurigiisa ninka sanadka bacdi ayuu soo doontay lacag loo helo oo guriga islaamada lacag uga qaato nin gurigii leh ayuu u yimid oo markaas dadka aan ka cabsanayn asay kamid ahay haduu yimid wuxuu yiri in gurigan lacag ka rabaa gurigan ana iska laho iibsaday yiri nin dokumentigiina waa kana asna yeeli maayo qoray unta qaato ninkii dilay waxyaabo igu yaab ka badneed oo soo mara taariikhday kamid waxyaabo soo maray kamid ahayd waxa kamid ahay maaragtay waxyaabo badan oo dad hortaada lagu dilaayo waxa kamid ah dad hortaada maalkooda lagu dhacayo waxa uu wadana aan la arag waxa kamid ah naaga la kufsanaayo hortaada lagu kufsanaayo oo aadan wax tabar u lahayn oo aad ku badbaadiso waxa kamid ah maaragtay gaadiid dad leeyihiin oo hegta la qaadanayo guri ay degantahay ciido inta loo yimaado banaanka looga saaro guriga la iska dagaayo oo markaas laga dhiganayo meel faqsiyo ama shaleema laga dhiganaya ama meel maaragtay wixii la soo dhaca lagu aruursada laga dhigta waxyaabaha soo dhan waxyaabaha aan maaragtay soo maray taariikhda bartay ilaahay amarkiis maanta maaragtay Soomaaliya waxay u muuqataa inay jaha yeelatay oo ay wax israaci karay waqtahay hadaan hargeysa dhageysto iyo hadaan garowe dhageysto iyo hadaan muqdisho dhageysto dadkeedu xoogaa marka Soomaaliya meel xoogaa waxay waqtahay dad meel u socda oo xoogaa maaragtay jaha yeeshay ay waqtahay marka saas way walaal ka waran haweenka Soomaalida doorka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda iyo waliba waqtigan siyaasadda haweenka sida ay uga qayb qaadanayaan sidaad u aragtaa adiga kooda dhaqan ahaan horta aan hormariyo 20 sano waxa lagu tiirsanay waa haweenka markii la kala qaxay ninka waa qaxay naagtii ilmihii waa la isaga tagay mid waa qaxisay oo mid gacanteeda wax ku jireen meeshii aad la aadi kartay ilmi la aad midna meelay aadama aqaanina gurigii looga cararay ku jirtay waxaan soo joogay 92 bishii afaraad ayaa waxa la diray degmada Cabdicasiis leeyahay inaan tago dad layga tilmaamay inaan soo waco dadka soo wacayay waxay ku ogaayeen inay ahaayeen naaga kaliya oo ilmo looga tagay naagtii lix caruur lahayd waxaan ugu tagay 2 ayadoo u hartay tii 10 lahayd ama 3 u hartay ama 4 u hartay tii 5 lahayd waxa u hartay waxba u haray waxaan tagay dadka qaarkii waxa laayay ilmaha qaar waxa laayay xabad qaar ilmihiya haray qaarkood habartina waa la dilay dadkaas marka dagaalka afar biloodka la yiraahdo 2 isu kaashatay dagaal konkorkooda away maalinka ka jirin meel ay aadan ma aqaanin dad Cabdicasiis ku dhashay ahaayeen meel ay aadaan oo Soomaaliya kamid ah yaqiinan ma jirto meeshoodii ku baaba'een dagaalka maalin walba la isku dul qabsan jiray wax xabad u dishay iyo wax qaajad dishay naqdeen wixii badbaaday ilaaha badbaadiyo dadkoodii uun la xiriiray waxbayna u gudbiyeen ama ayaga laftooda la raray si kasta ahaatee naagaha mid aan qaxin oo dadka aan qaxin oo meesha ku haray kamid hayna mid miis wax ku gada mid jaad gada mid basiin qatay nolosha 85% dadka guryahooda deganaay waxyaabaha noloshooda ku tiirsan waxa kamid ah haweenka oo u maqnay oo maalin u maqnay oo hameen u noqday ugu yaraan marka nimanka shaqeynaya ma dhamayn 10% nimanka 22 sano u shaqeynaya caruurtooda ma dhamayn 10% ma dhamayn waxa intaas dheer
naaga ayday ilmahooda dhoofeen oo Yurub tageen dadkii ay ka tageen ayaga wax soo diray haweenku marka haweenka Soomaaliya 22 sano waxay qaateen bilad geesi ayan helin haween ayaga ka horeeyay sababtoo ah haddii ay qoyskii ayadu dabka u shiday ilmihii ayadoo dhalaysa oo araxda ku sida oo uurka ku wada ay haddana dabka u shidaysa ilmaha oo ay wixii nolosha raadinaysa marka walaal marka waxa way haweenku 22 sano mid la dhibaato geliyay oo la kufsaday jira qaar ilmahoodii lagu hordilay jira qaar ninkeedii lagu hordilay jira wax intaas oo dhan waa soo aragnay hayeeshee kuwa badbaaday waxay badbaadiyeen wax ay gacanta ku haayeen markaas oo dad iyo duunyo u haday iyo nolol ka dadkaas iyo nafta dadkaas oo ay u shaqeeyeen mid jaad gadda mid sigaar miis ku gadda mid canjaaro dubta mid muufa dubta mid wax caana gadda mid walba basi u dhaqaajisay say u dhaqaajisayna dadkeedii oo ay u dhaqaday intaas waxay ka keentay marka wax la cuno wax barasho iyo caafimaad dadka ilmaheedu inay helaan bal ka waran doorka waqtigan ay ku leeyihiin dhinaca siyaasadda haweenka Soomaalida aanu kuma qanacsanin doorka hadda ay ku leeyihiin sababtoo ah wax ay soo mareen waxay ahayd in ayagaba siyaasadda loo dhiibay oo looga dambeeyo saasaan baan u leeyahay sababtoo ah mar haddii qoysku loo dhiibay siyaasaduna qoyskii kamid tahay oo waxay kamid tahay qoysas isu tagay ayaa siyaasadda marka saas darteed marka siyaasadda Soomaaliya in madax looga dhigo ayaga kaliya oo la yiraahdo bal 20 sano 21 sano Maxamed Saad Barre xukumay waa aragna xukunkiisa 22 sano maangu raacnaan xukum wax la yiraahdo iyo garashajaan inta badbaado dad oo maanta soo gaartana inta badan haweenka soo badbaadiyo koow ayaga uqdad ma qabaan rag uqdad isu qabaan reebala nagu duulay hebel ku duulay intaasoo dadahana la ka dilay magaalana la ka qabsaday dhulana la ka dhacay magaciisa rag saas doodaasi ku jira ayagu dadku soo jiidayeen mahane ma kala dhaqaajin dadka waa maadsan laakiin isleedahay waqtiga siyaasadda ay ka qayb qaateen haweenka waqtigan waxay tahay waqtiga ugu fiicnaa oo wax loo ogol yahay waa maqlaayay 100% hal la siiyo laakiin in la siinan hadana maqlaay hayeeshee maaragtay waxa inta badan lagu joogaa sabarkooda sababtoo ah ragga ayay inta raashin u bixiso ayadu qadi jirto haddana haddii siyaasadda lagu qadiyo way iska aamusnaanay waa fiirinay maahane ma qaylinayso sida dad rag u qaylinayo oo ma qaylinayaan oo marka hore sabarka la siiyo ayaga marka haddii haweenka adduunku ay fidna ahaa jireen ay dhibaato ahaa jireen haweenka Soomaaliyeed boqolkiiba 60 ama boqolkiiba 80 kuwa badbaadiyay Soomaalida maanta hartay way hambada waxay badbaadiyeen naagaha Soomaalida yahay waxaa barnaamijkan kuu soo diyaariyey Aamin Media Limited. bal ka waran tacdiyada iyo dhibaatadii loo geystay haweenka Soomaalida iyo noocay doonaan ha ahaadaan wiilkeeda lagu hordilay saygeeda lagu hordilay ilmaheeda lagu horlaayay ahalkeeda la dilay intaas maartay iyo wax ayadii la qaarkooda la kufsaday hadii la ku roon yahay wax ay maanta shaqaysay jaaday gaday ama meesay wax ku gadaysay ama moofay dubaysay waxay ka shaqaysatay ilmaha u shaqaysatay laga xoogay iyadoo arkaysa tacadiyada naagaha Soomaalida 21 sano gaaray ma ahan wax aan anaga maanta sheeko ku soo koobi karno wax alla wax dhibaato wadanka ka dhacay 95% haweenkay ku dhacay wiilkeedii la dilaayay keedii la dilaayay walaalkeeda la dilaayay tigeeda la dilaayay adeerkeeda la dilaayay maartay gabarteedii la kufsaayay kasaas oo dhibaatada intaas aad sheegtay oo ku dhacaysay haweenka Soomaaliyeed ma jireen kuwa aad la kulantay iyaga oo dhacaya hadii aad aragtay samxad dareen waxaan arkay wax badan oo haweenka darxumaha haysata nin hadii ku roon yahay naagjaadkadiisa intuu yimid yiri marduuf jaadaysi warjaadkan wax yaraan haystaa xun ilmo bil uga raadsana xabad madaxa looga dhufto goobjoogan ahay dalku roon yahay kuwa inta loo soo dhacay qoran dhunta inta laga saaray gurigay deganaayeen lagala baxay na goobjoogan u ahay kuwa kufsadayaan goobjoog u ahay dalku roon yahay intaasoo dhan goobjoogan u ahay wax alla wax dhibaato oo wadanka ka dhacay dhamaantood haweenkay ku dhacayeen laga mana badbaadeen baadii ayagu dulqaad lahayn haweenku waa laf dhabarka dadka Soomaaliyeed waana hambada dadka Soomaaliyeed 22 sano ka hirtay waxa badbaadiyay waa naagaha waaye
waaye nagu marka ay dagaalka qabiilka kama qayb qaataan dagaalka siyaasadda kama qayb qaataan haddii alla ku roon yahay nooc kastoo dagaal oo ay ka qayb qaataan ma jirto kaliya inay dagaalka ilaahay u tuugaan iyo ilaahu dagaalkaas naga dami iyo wax saas inay wax allaala wax dhib soo gaarayay oo aragnay waxay ku dhacayeen naagaha barka waran kaalinta dhalinyarada Soomaalida muddadii burburka ay qaadatay iyo waqtigan waxa looga baahan yahay dhalinyarada inay sameeyaan oo la gudbaan maxay tahay ugu yaraan 5 jil oo dhalinyarada Soomaaliya kamid ah burbura soo gaaray wax barasho ma helin maaragtay aqoon guud ma helin dhibaatada jirta waxa kamid ah in jaamacad ka baxay oo 22 sano jira ama 23 sano jira arkaysa haddaad weydiiso Soomaaliya imisa wadana xuduud la leh kuma sheeg wala Soomaaliya imisa gobol ka koobanta hadda tira waaya halkii ku yiraahdo wasiir 10 gobol waaya gobolada magacyada sheekadii la yiraahdo iyo jahooyinka ay kala jiraan Muqdisho markaan joogno jahooyinka inaga xigaan waa naadir hal shay kara cilmiga bulshada cilmiga la yiraahdo oo lama baro sababtoo ah manhajka waxa laga keenaa Caraba laga keenay waxa la baraa maaragtay dhulka Yamanta dhulka Ciraaq kan Suuriya Lubnaan Sacuud Carabiya waxa la baraa meelaha soo maaragtay waxa arkay marka nin oo master haysta oo Soomaaliya ba aqaaninba walow hadda way badan yihiin dad qaar madaxweynayaal soo sharaxayaan arkayay oo Muqdisho labada shabeelle yaqaan ka xagga wax jiraan aan arkaba aan goobjoog ah marka saas way wada dhalinyarada dhibaato badan ay soo mareen hayeeshee wax waa dadkii maaragtay hooyaasha u shaqeeyeen ama jaad xagadan ama mufaadibaanay qaar wax la baray waxay ka roon yihiin marka maaragtay wax qaar badan oo kamidana waxay noqdeen mooryaanta qoryaha liibaanayaasha lagu liibaanay noqdeen qaar badan oo dhalinyarada kamid qoraysi ay sidii jireen liibaanayaasha lagu liibaanay u baxsheen kuwa oo wax cabiraahu qaar badan waxbay barteen wax barasho kama darta ayadu wax kasta ahaatee in maaragtay nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya gobolada Soomaaliya la baraaho waxay ku qaadanaysaa 20 daqiiqo oo lagu bari karaa gobolada Soomaaliya iyo degmooyinka 20 daqiiqo ama saacad lagu bari karaa inuu barto laakiin aqoon guud oo maaragtay jaamacad laga dhigto ama maaragtay ama iskool sare lagu dhigto waa aqoon guud oo wax badan ay rabtaa maalmo badan iyo bilo badan iyo sanado badan ay rabtaa marka dhalinyarada doorkoodu waa soo qaateen sababtoo ah waxay la soo kulmeen burbur waxay ka burbureen tacliintii waxay ka burbureen qalbiga waxa jiray markii dawladdu burbureysay ninka 20 jirka oo qabiilkiisa ma aqaan qabiilka uu ka dhashay ma aqaan markii la diriray waxa loo sheegay qabiilka uu yahay kuwa la diriray qabiilkoodana waa loo sheegay waxa la yiraahdaa kuwa Reehebel la yiraahdaa anaga la dirsan anagana Reehebel la yiraahdaa soo wadiye marka wuxuu bartay jufadii hadana dagaalka soo socday wuxuu ku soo noqday hadana laba oo buug hor iska garab dagaalamaysa isku soo jeesatay jufo hoos u tagay ilaa maartay waxaan rabaa marka waxyaabaha igu yaabka badnaayo marka hore aan soo ilaabay oo haweenka ahayd waxay ahayd kaaraan ay ka dhacdo laba dhacdo oo yaab waxay ahayd nin hooyadii dilay gurigiyaal adoogiyaa dhintay oo la dilay gurigiyaa la dhulaa la dhaxlay hadii la dhaxlay hooyo dad jiray dibadda ayay xoolahoodii qabatay wiilkana xoolihiisa waa qaatay jaadu ku soo cunay waa yimid xoolihii kale ay dhisayo xoolahaas dada iska leh tiriyo kuma sii karo kaaraan ka dhacay waa dilay hooyadiis taasoo mid ay ahayd islaan kale ayaa waxay dishay wiilkeedii dishay waxyaaba igu yaab badnaado soo maray 20 sano oo ma xasuusnayn adoonta markaan qaybta hore aan gaadlaay ma xasuusnay hadda aan xasuustay wiilka nin abtiya guri looga tagay cidda oo nin abtiyo leeyahay iyo fiiqanay hafiiqana tir gurigan dhaaf abtiga iska leh waa diiday wiilal tir isoo qabta halkaas qorta ay faas uga dhufay kaarkeygan ku qariyay ayadoo cabsanaysa ka bacdina waxaan u diray marko oo ahlkeedu jira ana u diray oo maartay meesha saas u xariis marka waxyaabay soo maray ugu yaabka badnay wiil hooyadii dilay iyo hooyo wiilkeedii dishay iyadoo marad marka ilmeysay iyo guri inuu islaamiyadu fuuq kana wuxuu dhacayay inuu dhacaw rabay ilmaha walaalihiisa dhaxalkoodii inuu ka qaato oo ay ka xoog dhalinyarada Soomaalida inkastoo dhibaato badan iyo shaqo la'aan ay haysto ay soo mareen maxaa la gudboon waqtigan inay sameeyaan si dalka dib u dhiskiisa ay uga qayb qaataan horta wadanka iska leeyihiin ayaga iska leh waana arkeen qaar badan oo ay kamid waxay arkeen wadamada shisheeyaha iyo qafki aan wadan lahayn si loo quursanayo kan lagu ma quursan karo dalkoodu waa la isku dilay hadda la isdilmay qabiil la isku dilmay qabiil waa laga baxay mabaadiiyo kale la isku dilay hadda waxyaabo kale la isku dilay qabiil la isku dilmay inay wadankooda ayaga iska leh ay wadankooda dhistaan ay cadawga ka ashadaan oo aan loogu talin oo ciidamo shisheeye ugu talin siyaasi shisheeyana uusan ugu talin ay wadankooda ayagu maanta u taliyaan oo qof ula talisaysan jir saasan kula talina dhalinyarada Soomaaliyeed sababtoo ah dalkoodu waaye ninkii tagay Kenya aan noo xigta dal iyo Ethiopia iyo Suudaan iyo Uganda
ninkii tegey oo Soomaaliga waxaan soo marnana ana u sheegay waxaan soo marnay annagoo adduunka dadka Afrika ugu sarreeyna oo jidkan marayno caalamka ku yaallay waa Soomaaliyeena la hadlay juqyaan loo dheh waa soo marnay oo sarreeyno dad sarreeya aan baasaboorkeena sarreeyo muuqaalkeena sarreeyaan soo marnay oo Afrika oo dhan ay naga cabsato oo leeyahay dadka Afrikada madow u qatarsan dadkan waa soo marnay anu waxaan kamid ahay dadkii Zimbabwe markii xoroonaysa tagay askarti tagtaan kamid ahay oo ilaalinaysay markii maartay Salisbury magaalada Iiraan ka ilaalinayay sanduuqda ay ku codeynayaan dadka reer Zimbabwe oo laba xisbiyo oo Sanu iyo Zabu leeyahay ay ku codeynayeen maartay Afrikaanti kale oo naloo keenay darbiyada seexad jireen iyo xariyo meel barxadaha la seexad jireen anaga hotel seexad jireen Soomaalida dhamaantan hotel ku yaal Salisbury seexad jireen ma la ogoleen inaan seexano meel barxadaha taasi waxay muujinaysaa Soomaaliya heerka ay soo Soomaaliya heerka soo martay muujinaysaa ilaa aan doorashadu ay dhamaanaysay ilaa aan ka soo tageynay qafnaga miduhu darbi ma seexan xira military ma seexan marka Soomaaliya way sarreeyday inay soo noqoto ilaahay laga rajaynayaa baabuurka ka baxa meeshan hadda aad ugu hadlayso meel barxadaas ka baxaya Hargeysa aadayay maartay meesha hadda oo ka baxaya cashuur looga qaadayo markuu Hargeysa tago cashuur kale markii la degta cashuur laga qaaday inta ka dhaxaysa gacan looma taagi karo gobolku ka yimid iyo gobolku u socdo bisa cashuur ka qaadi karo Soomaaliya soo martay intaas waxaan soo marnay maartay meesha la yiraahdo Galdafu oo maraakiibta adduunku ay maraan inaan anagu leen oo ay maraakiibta dhamo ay buurtaas ay soo maraan markabku markuu meeshaas madow jaha qaadana oo ama badda cas aada ama badweynta Hindiya aada ama meesha rabo kale oo aada laakiin horta waa inuu albaabkaas maraa waxay yiraahdeen wariyaashu jidka ugu mashquulka badan waa la yiri maartay badka ugu mashquulka badan waa jidkan ka yimaado bad la yiraahdo Arabian Sea oo ku soo dhacda Hindiya iyo badda cas ku soo dhacda marka waa marinkeena waa noo baahan yihiin ku mara 200 oo markab dagaal ma keenan hadaysan noo baahnayn anagoo maartay Soomaaliya han badda ka ilaalin jiray oo iska dhaf bad iyo qaf aadey aan gabar suuqa maraysa oo labisan aan la dhigi karin hataa aan soo marka waa saas way walaal ka waran odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo doorka waqtigan ay qaateen si loo helo dib u heshiisiin iyo cadaalad caam ah odayaasha dhaqanka goboladu isku mid maahan gobollo qaarkood waa odayaal goboladooda qurxiyaa jira dadku isku mid maahan midna waqooyi galbeed oo kale goboladoodii oo qudbiye Somaliland odayaashoodii qurxiyay oo nidaam ka sameeyay Puntland sidoo kale odayaasha sameeyay laakiin koonfurta Soomaaliya odayaashoodu ma amaan wax amaana ma leh sababtoo ah doorkoodii meesha ma alle waa laga waayay horta wiil asiga xal loo diray inuu dagaalamo wiilku dagaalamo waxa laga rabaa marka wiilka dagaalamo oday ka taliya yiraahda maartay wiilkaas xagga ka soo jeeda odagiisa iimaad anna kana ahay ka bacdina meeshaas wada hadal inta ka soo baxo nidaam ka yimaado fawdada maanta taagan waxay ahayd doorkii odaga oo meesha laga waayay walina idaacadaha waxaan ka maqlaayay suldaanka hebelaan ahay suldaanka kaas oo annaga noo maahan ugaaska hebelaan ahay kaas ugaas noo maahan waaga maartay waxay shalay la yaacana maanta u soo fakaday marka wax nafa male waa anu kuwa furta Soomaaliya waa aad u dhaliila laakiin kuwa Puntland iyo Somaliland waa fiican yihiin nidaam ay sameeyeen madaxay sameysteen dadkoodii aan nabad wax ku baranaya marka qafka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay 3 walxaato inuu maamulka helo dhalinyaradu waxay u baahan tahay 3 walxaato inay maamulka helo ammaan waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan saddexdaas qofka Soomaaliya haduu waayo waa qiimadeed laakiin misleedahay odayaasha dhaqanka Soomaalida gaar ahaan kuwii Muqdisho ee isku keenay sanadkii aynu ka soo gudubnay 2012 ismihii dawladana ka qayb qaatay wax weyn waa ay qabteen odayaashaasi wallahi wixii hadda qabteen anigu aad ulama socon laakiin waa maqlaayay meel lagu aruurshay 130 ka bacdina iyagoo qaylinayo waa nala dilaa iyo waxlaan maqlaayay day wax fiican day sameeyeen jisakalla hadaysan sameyn wax fiican waa maartay nin walba waa yimid moogtahay meesha uu yimid laakiin anigu kuma dhax jirin oo aad ulama socdo laakiin cabashooyin waa badnaayeen aad loo cabanay maartay odagu wuxuu soo qoray in uu laaluush ka qaato dad kuwa lahayd odagu saanu sameeyay kuwa lahayd wax kasta ahaatee wixii ay inta dadaalkooda Allah la jiro inta maartay qaab darro sameysana islaamka Allah ku soo daro waana mahadsan xaaladda dalku wax badan waa iska bedelay misleedahay sanadihii laga soo gudbay sanadkan ifaalada muuqata wallahi min law yacdo ilaa iyo raas kambooni inta ka dhaxaysa Soomaalida joogta maanta inaysan kala maarmin xasuusan qolaba meel iska joogtay wax kasta ka ahaadana waxeedu iyo wax dhalay iska haysatay maantay
waxaa la xasuustay ninkii Soomaaliland madaxweynaha ka ahay ninka Puntland madaxweynaha ka ahay kii Muqdisho federaalku ahaa lahay dhammaantood waxay garowsadeen in Soomaaliya maantay waxay ka maqan ayada ku maqan yihiin waxay u yaalna ayada u yaalin مثلا Soomaaliland oo kale waxay raadisay wax la yiraahdo aqoonsi qof kasta u taga aqoonsiga kuwa aad hore u la midowdooda ka jira halin kuwaas markay inaan aqoonsaneen ma in loo sheego in ay ugu gartaan ay had laakiin hadii loo sheegana hadday gartay aqoonsiga aan ka jirinaynay Addis Ababa iyo Nairobi iyo London iyo Paris iyo Talyaaniga aan ka jirinaynay Muqdisho aan ka jirinaynay aan ka dhigay waa war farxad leh waaye Soomaaliya maantay way fiican tahay nin walba gurigiisa uu yimid waa dayac tiraha waa gadaha mid Yurub oo ka yimid baaro samaystay qaar waxay samaysteen lamadaanyo oo caalamiya la sheegay raadiyaha idaacadaha iyo telefishinada aan ka arkayay waxa la sameeyay saxaafad aan xad dhaaf oo aan loo qaateenayn oo qatar ah oo wixii dhaca saacad daqiiqad soo gudbinaysa intaas oo waa horumarka Soomaaliya marka waxa la rabaa in horumarka ma aad loo kordhiyo loo wado waxa intaas la jirta maartay Soomaaliya tuulo haday 100 qofood ku nooshahay 100 qoys haday ku nooshahay konton haday ka tagto tuulada soo dhimanaysa magaalo sideeda in dadku u yimaado in dadku ka tago ay ku dhimanaysaa laakiin dadku inuu magaalada ugu fiicnaa Soomaaliya Muqdisho yahay laga hadana waa loo soo noqday waxa muuqda ifafaala soo noqosha oo waxaan arkaa hoteelo waaweyn oo liida laga sameeyay guryo la dhisaayo dabaqyo dhaadheer hadii la ku roon awal bakaaro al dhisi jiray suuqbaad kaliya هذا airport inta ka dhaxaysa liido yaa wax iga siiyay dabaka iga siiyeen waxaas marka waxa waaye waxay muujinaysaa waxooga horumar barteeday muujinaysaa marka waxaan ku sheegaa in Soomaaliya maanta ay rajo fiican leedahay qofka Soomaali maalinta marka la guuleystay waxa waaye marka qofka Soomaaliga ah wax barasho lacag la'aan iyo ilaa heer jaamacadeed iyo maaragtay caafimaad lacag la'aan iyo amaan awsan lacag ku bixin hada amaanka dad lacag ku baxsho wala iswardiyeeyay dad arka qoryaal la daba socdo qaar bastoorada wata arkay qaar ba waxay isku ilaali karaan isku ilaalishaan laakiin qofku meeshii rabta inay socoto waqtigay rabta na socoto waa amaankaas oo kale qof walba u booman tahay koo dad qofka Soomaaliga wiilka ama gabadha Soomaaliga dugsi hoose looga bilaabay dugsi dhaxal lagu xijaay eedka markay tagtaan ilaahay ama shaqayso ama wax barashada sii wado waa sii wadaha dugsi sare hadana ku tagaysa form 4 waa lacag la'aan jaamacadda la geenay jaamacadda markay gasho lacag lagu siinayo mushaar ku qaadanaysa shaqaalaha dawladda amal mushaarka qaadanayaan iyagoo waxna baranay waa anagana soo martay marka ma qaban adduunku ma qabo in jaamacad dhiganayo ama gabadha jaamacad dhimanaysa lacag la siiyo oo lacag loogu daro meel laga qabo Soomaaliya ma jirjir marka waxna dhaafon nagu soo naqanay in kala aan kala helin waaye ilaahay na soo celsho waana mahadsantahay horumarkaas la gaaray waqtigan iyo waxa noo dhiman sidee lagu gaari karaa qof kasta Soomaaliyeed maxaa looga baahan yahay horta waxa la rabaa guriga xaafadda ka bilow illa meesha ugu sarreeyo in qof walba waxay ku aadantahay guriga laga soo bilaabo nabad oo ilmaha aad dhashay aad ka nabad geliso kuwa la deriska ay kala nabad galaan marka nabadaas ay timaado deriskoo dhan nabad helay marka deriskoo dhan nabad helaan magaalada dhammaan nabad helaysa magaalada dhan markay nabad heshana magaalooyinku ku xigaan nabad helay waxa soo dhan waxa lagu gaari karaa in qof walba ay dadaasho oo ay u dadaasho in Soomaaliya wax naqato Soomaaliya hadaysan wax naqan sidii Falastiin waxa jira toddobaad nin maalin Khalid Mash'al leeyahay 45 sano dalkiisa ka maqnay siyaasi waay dibadda ka xukumay jabhad 45 sano dalkiisa ka maqnay dhibaato uma dhinan 40 siyaasi oo 45 sano kuriya islaameed deganay oo dhulkiisa imaan 45 sano ka bacdi oo maalin weydii mid wadankiisa wadanka waa laga kala cararay kan Yurub jooga ha yimaado waxa ku dhiso kan jooga maartay jooga Mareykan jooga ha yimaado waxa dhiso kan jooga Afrikadan joogo oo maartay ama Koonfur Afrika jooga ama Kenya joogo oo ganacsiga weyn kula ha yimaadin hadhisan magaalooyinkeena Soomaaliya hadii aan dhisan magaalo kaloon dhisno wax aan ka helayna ma jiro waxaan ka helnaa walax nolol maalmeed waa koo dad u qorxoon yahay magaalada ay qorxoon tahay isli waxa leeyahay waxay haajartaa leeyahay meesha Nairobi hoose ay haajarta haddana meesha Nairobi u sareeyada waa Soomaaliya ka dhigta magaalooyinka inta tagtiin oo magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya ma badno magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa magaalada Burco
baydhabo kismaayo hadaal gaalkacyo magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya intaas waay dada waxay u qaban magaalooyin waaweyn oo Soomaaliya leedahay magaalooyin waaweyn Soomaaliya male marka magaalooyin kasta la yimaado waxaad dhisaydo hadaad gaalkacyo ka tagto markaa hor gaalkacyo ku dhis hadaad garow ka tagto garow ku dhis hadaad laascaana ku tagto laascaana ku dhis hargeysa ka dhis burca ka dhis muqdisho ka dhis kismaayo ka dhis marka ka dhis jawhar ka dhis baydhabo ka dhis kulli wada dhis wadankaaga dhiso hadii adigu aad dhisto mid kale dhiso mid kale sii dhiso wax qurux badan oo anagu leenahay meeshaas ka soo baxay waan mahadsan waad mahadsantahay Cumar Sheekh Cali oo kamid ah odayaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho aad ayaan kugu mahadcelinayaa guud ahaan barnaamijka muuqaalka Soomaalida maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib dambe u kulmi doono sidaas nabadgelyo warfahina mina media wa astan wadanimo media wa iskashi kowanimo wa adeeg soo sugan media